oo dadweyne la hargeysa dib loo bilaabo waxaanan ugu horeysiinayaa runtii mahadnaqada dabadii waxaan ugu horeysiinayaa raggii bilaabay xilliga la sheegay inaan anigu waday raggii aan ku soo gaadhay oo ay ka mid ahaayeen ama koow ka ahaa maxamuud aadandheri maxamed xuseen maayirkii hore iyo badhasaabkii hore ee burco injineer faarax xuseen iyo raggii kale ee tiimka ahaa odayaashii bilaabay ee mashruucan khayriga bilaabay ee tiimka ahaa ee guddiga ahaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaa inuu miisaanka khayraadka ugu daro oo ifi aakhiraba ilaahay subxaanahu wa ta'aala abaal ka siiyo waxaana fiican dadku inay dadkooda wax qabtaa iyo ummadooda xusaan ayaa muhiima waa laga yaabaa inay badankoodu dhulyaal yihiin especially labada oday waaweyn oo hal door u ahaa gobolka iyo regionka deegaanka oo dhan ama Somalilandba dabadeed waxaan la qabaa runtii sixitaanka in wadada tan aan iminka la bilaabayne hore loo bilaabay Siciid Sulub sarfeyga hore iyo banaynta wadada uu sameeyay annaguna waxaan filayaa ood weyne haddaanan qaldanin 23 kilomitir uu ka dhinaa dhigitaanka ciida burco ilaa ood weyne waxa iyaguna qayb libax ku lahaa meeyirka ood weyne waxa jiray qalab aan filayay ilaa 6 meelaha inuu ahaa oo cagafyo iyo isugu jiray waxyaalihii 5-6 mahoobo tiradoodii iyaguna joogay marka bilow fiican baa jiray haddii xukuumaddu way u ekaydo waana loo doortay waa shaqadeedii sidii uu ninkii halka ka hadlayay yiri I think inuu hay Sudan Ismaaciil ma hadeeq ma ha abaal waa shaqadoodii waana looga baahnaa inay dib u bilaabaan oo ay waliba sanadkii afraad bilaabaan waxaan filaynaa inay sanadkii koowaad bilaabaan waa shaqadoodii garto annaguna jeedalka waanu idla daba soconaynaa shaqada waynu kala leenahay xilka haysaan maalin badin baa qaranka u jooga ninka qaranka u jooga ma aha wax gaaro isagu leeyahay wax loo igmaday inuu xilka ummadda uu qabto waxa uu ka qaado ummadana uu ugu adeego waa adeega bulsho ninka oo haya xilku waa adeega bulsho ninka mucaaradka ah shaqada u taala waa inuu ninkan dabagalo jeeda la dabagalo oo ku dhangadeeyo hawshii tan muu qaban tan uu ka tagay tan uu qalday war shaqada waynu kala leenahay xijista annagu waxa laga yaabaa waliba aadiidu kuma naan xijina waxaan arkayaa in marka aanu idin soo qaadnaa gubanaysaan waxaan leeyahay xijista كل يبلو آدم بيننا هاي شقق الصون قبلنا دليل ويانا سا أفكا مسؤولك وحيل يواجبات سارا نبأه هذا الله دليله دليل شيء إذا أنا أركض لشرته وأنا قاطع توسية دليل شو توسين هذا أنا شرينا ونسكت دفعنا وحن شرين هذا أقبشه وحوي وحن شرين بعد أقبشي فقالوا إنه كم كل الله نينو لكن ليش جرتا ونقادنا ونصحنا وعن شرنا كل ما تعلينا نقادنا أنه وضعنا دقة دقناي بلوجينا وصعدا وضعنا ما تانو دقينه بشي كوباد أيام بلون دراسة ديسة وحايم كديسان كامم كي وحشوجا شغاله وحشوجا معداتي مركا هدي هرا لو دقة دقولا بلابي وايي دقة دقوم ما هاي أنت العلامات مال دقو إن كتقو إن إذا هذا بريت ولنا هرا لو دقة دقي دي هرا لو دقة دقي تماذا وحي لقبتي وحرا لو قبتي ما شفتو رنتي أنا مركب على مسنا هاي ما أنت دقة هارو دقنا نقول ما يدقة لقى تجي ونقول دولا دقة بسمه وإن شاء الله إلى هاي إن الله دقله وانكو أمانية وانا نوهنيني أنا وين تيدي سببتو هدي رياضي دفنيدي عدي رويسي أي أنا وين تيدي سينيا حرسنا وكايا وحارن لها waxba yaanay noqoladeenna warxun baynu faarfaarnaa waxa maynu qabanay qoladana aynu wixii wada siinay libti horta libtiidii kaanu jeesinay qoladeedii hore qoladiina dambe ilaahay idinku guuleeyay idinku cararday gawada Cabdilaahi Abakor saaxiibka kulligeygiina waxaan ku amaanayaa ayadoo duruufo badan inagu xeeran yihiin oo dhaqaale oo ay ka mid tahay wadada wadan wali dhamaan oo ay ka mid tahay covid-kii oo dhaqaale badan hoos u dhigay dakhligeennii oo ay ka mid tahay lacagtii dhaqaale aynu haysano aynu ku galay doorashada
oo ay ugu yaraan 20 milyan oo dollar inagu kacayso oo aynu isku tashanay inaku